shaqaalaha iyo howlwadeennada xafiiska garyaqaanka guud ee qaranka ayaa markii lixaad shaqo wadaniyadu ku dheehan tahay ka qabtay goobaha lagu dhisayo barnaamijka isxaqaan gaar ahaanna madxafka qaranka. Shaqaalaha ayaa ahaa kuwo u diyaarsan in ay si mug looga qayb galaan dhismayaasha kala duwan ee ka soconaya dalka iyagoo fulinaya amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka ee ku aadanaa dalkaaga isxaqaan ku dhiso in la soo celiyo isxaqaan oo iskaa wuxuu qabsanay dhashay halkaa inay ka socoto inaanu ilaa bacd celintii shalaambood oo dambiilaha iyo sakeelka la isku dhiibahayay duhurkii intaa halkaa laga baxo guul weyn oo lagu gaaray bay ahayd. haddana waxaan rajaynaynaa dadka dhalan doona iyo kuwa hadda soo socda ilaahay hadduu yidhaahdo isxaqaankaas iyo isku duubnidaas iyo nidaamkaas iyo wadajirkaa inaan ku socdo. cabdiweli cumar cabdulla oo hadlay xafiiska garyaqaanka guud ee qaranka shaqaalahana hogaaminayay ayaa dadka Soomaaliyeed ku booriyay in ay si dhaba uga qayb qaataan dhismaha dalka oo hadda ku soconaya si dardar leh. waxaan rajaynaynaa in hay'adaha kale iyo shaqaalaha kale iyo Soomaalida dhammaan meel bay joogaan cid walba u furan tahay isxaqaan qof walba Soomaali ah isxaqaan u furan tahay inuu dalkiisa dhiso dalkiisa ka shaqeeyo madxafka iyo maktabadda tiyaatarka kaliya kuma koobno qofka gobolada joogo gobolku joogo inuu ka wado maaragtay isxaqaan ay ka bilaabaan. waxaan ku boorinayaa mar walba shaqaalaha Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed inaan isxaqaan mar walba ka qayb qaadano. waxaan aad ugu faraxsanahay shaqaalaha xafiiska garyaqaanka guud oo maanta kaalin lixaad leh ka qaatay. cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.